maxkamadda horteeda waxaa la keenay 289 litir oo khamri ah oo lagu soo qabtay hal nin magaciisuna yahay Maxamed Saciid Xuseen ina Zaara oo jaamac 22 jir taasoo maqana uu yahay Axmed Cumar Cusmaan uu maqana yahay adaba maxkamaddu markii ay aragtay xaashida xeer ilaalinta ee 23 soona baxday 9 bisha tobnaad 2022 maxkamaddu kolkii aragtay qodobka afraad firqadiisa koobaad iyo labaad iyo saddexaad iyo afraad maxkamaddu kolkii aragtay aayadda quraanka ah ee suuratul maa'ida aayadda 9aad koob iyo 9aad iyo aayadda 33aad ee suuratul caraaf maxkamaddu waxay xaqiiqsatay inay dambiile yihiin Maxamed Saciid Xuseen ina Zahra oo jaamac 32 jir Axmed Cumar Cusmaan maqane sida awgeed maxkamaddu waxay ku xukuntay Maxamed Saciid Xuseen ina Zahra oo jaamac 32 jir waxay ku xukuntay 5 sano oo xadhig ah sidoo kale Axmed Cumar Cusmaan maqane maxkamaddu waxay ku xukuntay 6 sano oo xadhiga oo maalinta la soo qabto uga bilaabmaysa maxkamaddu xukunka waxay u cuskatay qodobka afraad firqadiisa koobaad sidoo kale firqadiisa labaad maxkamaddu waxay amartay 228 litir in la halka maxkamadda horteeda lagu jajabiyo qodobka afraad firqadiisa labaad iyadoo maxkamaddu cuskanaysa sidoo kale qodobka afraad firqadiisa afraad maxkamaddu iyadoo cuskanaysa waxay xukuntay gaariga 1 tan ah ee lambarkiisu yahay 84614 boqolkiiba 20 in lagu taqsiiro waxaan halkan uga mahad celinayaa ciidamada booliska oo hormuudka ka yahay taliyaha qaybtu iyo taliyaha saldhigga booliska Beligubadle aad baan uga mahad celinayaa marka labaadna halkan waxaan uga mahad celinayaa maxkamadda gobolka degmada Beligubadle oo runtii si wanaagsan ka yeeshay eedaysanayaashii aan ku soo qabanay khamri dhan 289 litir taas oo ku fufisay xukun munaasib ah anaguna aan ku qanacnay diyaar waxaan nahay inaan bilayska aanu la shaqeyno iyadoo aan marka horeba wada shaqeyn aanu leenahay bilayska iyo maxkamadaba waxaan maanta halkan maxkamadda lagu soo bandhigay ama lagu xukumay khamri dhan 289 litir oo ay soo qabteen ciidanka bilayska Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan qaybta gobolka Hawd aad baan ugu mahadnaqayaa waxaa la qabtay oo halkan lagu soo bandhigay maxkamadduna ay xukuntay raggii watay khamrigan oo cadadkiisu dhan yahay 289 litir waxaan leenahay waxaan halkan ka bogaadinayaa ugana mahad celinayaa ciidanka booliska taliyaha qaybta iyo ciidankiisa iyo taliyaha degmadaba waxaan leenahay aad iyo aad baad mahadsantiin waxaad u shaqeynaysaan waa dalkiinni iyo dadkiinni dadkan keenaya khamriga ee soo gelinayana waxaan leenahay ka waantooba dhibta iyo hagardaamada iyo xumaanta aad ku haysaan dadkiinna bedel khayr qabaan ilaahay inii weydiinaynaa ka waantoobaan leenahay wax khayr qaba raadsada markii koobaad iyo markii labaad iyo markii saddexaad maaha waxaan la qabanayo waxaan ku naalaa waa xuduud dadweynaha gobolka Hawd waxaan ugu baaqayaa oo ku bogaadinayaa sida wanaagsan ay wada shaqeynta nolol leeyihiin wixii xun ee marayaba ay nolol soo wadaagayaan waxaan leenahay halka ka sii wadaan leenahay wixii dalkeenna iyo diinteenna iyo dadkeennaba dhibaataynaya si aan iskaga kaashano waa inaad soo sheegtaan meel kasta uu marayo inakuna ka daali mayno inaan meel kasti oo galaan dadka xumaan fulowga aan ka daba tagno cid kastoo ka qayb qaadatayba shicib iyo askartaba waxaan leenahay aad iyo aad baan inaga mahad celinaynaa